waxaa maanta magaalada Gabiley caasimada gobolka lagu soo gabagabeeyay tababar muddo 3 cisho uga socday degmooyinka Laascaanood, Ceerigaabo, Caynaba iyo Taleex. tababarkaasi oo ah mid la xidhiidha mashruuca maamulada dejinta GPLG ee dowladda hoose dalka. tababarkaasi oo ay bixinayso dowladda hoose magaalada Gabiley caasimada gobolka ayaa wax ka soo qayb galay agaasimayaasha waaxaha qorsheynta arrimaha bulshada iyo maaliyadda ee degmooyinkaasi. qaar ka mid ah xogeyaasha dowladda hoose Ceerigaabo, Laascaanood, Caynaba iyo Taleex. sidoo kale mas'uuliyiinta degmooyinkaasi ayaa kormeer kala duwan ku maray qaybaha kala duwan ee ka koobantahay dowladda hoose degmada Gabiley iyo sidoo kale mashaariicaha guuleystay xilligan ka hana qaaday magaalada Gabiley caasimada gobolka Gabiley. waxaana xidhitaanka tababarkaasi goobjoog ahaa Jiciir, xogeyaha guud ee mashruuca maamulada GPLG-ga iyo sidoo kale xogeyaha fulinta dowladda hoose ee degmada Gabiley Mustafa Xaaji Cabsiye. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Jiciir intuu dowladda hoose ee degmada Gabiley uga mahadnaqay martigelinta tababarkan. objectiveska amba waxyaabaha ahmiyadda u lahaa tababarkan iyo aqoonsi wadaarsigan iyo wax kala barashadan labada magaalo ee maxayday laydin dooray in aad wax kala barataan maanta inoogu dambaysa waxaana ahayd in aqoonta wax kastaaba amba xogeeye kastaaba dhigiisa labada degme Berberi iyo Gabiley in aad wax ka barataan. hirgelinta barnaamijkana waxaan aad iyo aad maxayday ugu mahadnaqaynaa maxayday wasaaradda dakhliga, xafiiska championka, hay'adda UNDP oo inoo qaban qaabisay iyo labada degmo ee aynu ahayn martida min 3 cisho. Gabiley waabay ka sii badantay, waa 4 cisho iyo 5 afarta degmo aqoon-yahanada ka socda iyo maamulada ka socda. waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa sida u feejigneedeen ee maxayday hawshan iyada ah xilka iskaga saarteen ee doonayseen inaad degmooyinkeennii maxayday u qaadataan waayo aragnimo badan. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xogeyaasha dowladda hoose Ceerigaabo, Laascaanood, Caynaba iyo Taleex. dowladda hoose ku ammaanay martiqaadka iyo qiimaha tababarkan waxaana yiraahdeen waxaan uga mahad celinaynaa soo dhaweynta ballaaran runtii iyo qaabilaadda hagarta lahayn ee aan ugu qaabisheen marka ugu horeysa. waxaan oran jiray wargeynada la sheegaya malaamiga yarba magaalada ma jirtay meesha laakiin markaan hoos u dhaadhacnay hadda ee u hooyanay ee haddii la ku rooyay meel kasta aan soo mariseen ee guri kasta aanu galay ee aanu aragnay qaabka ay u shaqeyso iyo waxyaabaha horumarka ay sameeyeen haddana waxaa noo soo baxday wartan iyadaba dowlad gaar ah oo calan leh iyada ah sida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kale diimitisha runtii oo xog ballaaran la isu hayo oo la isbarto. sababta waxa weeyaan inta qof aan ka baranay hadda ee aan hebel macruufada wanaagsan ku baranay laakiin waxa aynu ka wada simanay aynu ka wada qaadinay waxa weeyaan isbarashada iyo sida loo tallaabo qaaday dowladda hoose ilaa halkan ma taagnin markii horeba. waqtiyaal baa ay bilow ahayd, waqtiba meel bay marisay halkay tallaabada ka qaaday iyo sida ay u xisaabtamayaan iyo sida ay isugu xidhan yihiin amaatay nidaamka iyo maamulka oo wada shaqeynaya muhiimadda ugu weyn ay tahay. taasi waa wax guul ah runtii wax weeyaan oo ah waxaanu baranay oo waxaanu aragnay oo aanu gaarsiin doono bulshadii kale ee aan wakiilka ka ahaantii. waxaanu halkan si ballaaran uga mahad celinaynaa soo dhaweyntii qiimaha iyo qaayaha lahayd ee milgaheedu sareeyay ee ay nagu soo dhaweeyeen magaaladayadii Gabiley, maamulka dowladda hoose ee degmada Gabiley. sida hagar la'aanta ah, jacaylka ee walaalnimadu ku dheehan tahay ee ay nagu soo qaabileen oo aanay u kala maqnayn maalintii la bilaabay aqoon isweydaarsigan ilaa maanta oo aynu gabagabeynayno. runtii mar labaad iyo mar saddexaadba waa idinka mahad celinaynaa. waxaanu rajaynaynaa inaanu annaguna abaalkaa gudi doonno haddii ilaahay yiraahdo ee waaxyaha dowladda hoose iyo xoghayahooda iyo maayarkooda sida isugu xidhan yihiin ama qof walibana uu xafiiskiisa gaarka uga shaqeynayo, wax walibana ay gaarkeeda u sii shaqeynayso, hawlahooduna ay u yihiin kuwo dhammaystiran. runtii wax noo bilaabanina waa jiraan, waxaan noo bilownayna waa ku jiraan. wixii dee noo bilaabnaa oo markii hore noo jirayna waa insha Allah halkii baanu kasii kordhin doonaa. wixii aan noo bilownayn qorshaha aan noogu jirinna waxaanu rajaynaynaa inaanu ka faa'iideysano oo aanu samayno sida idinkuba aad u qabateen. halka wanaagsan ee quruxda badan ee wanaagga ka muuqdona waxaanu rajaynaynaa
inaanu annana maalin uun soo gaari doono soomaalida waxay tiraahdaa awrba awrka ka horeeya buu hoggaan qaadkiisa leeyahay saddexdaa cisho aan Gabiley ku sugnayn waxaanu maqlaynay gobolkii cagaaraa laakiin anagu magac kale ugu darayo gobolkii martisoorka runtii halkan waxaan ugu nimi waanu ku barannay dad aqoon tacliineed iyo aqoon deegaan saddexda halkan waan ugu nimi waxaan rajaynayaa in kulley dad fara badani ay isweydiinayaan war seminaarku mudiinsi ma wax la idinku sii daro degmooyin kale waa la soo maray laakiin degmada Gabiley run ahaantii meel weyn ay nagaga taala abaalka nala gashaday ee Gabileyna gashatayna qof kasta oo reer Gabiley waxay noqon doontaa in meeshii laga arko dee loo kala tartami doono insha Allah taala wanaaga iyo sharafta iyo karaamada aad nagu maamusteen ee aad nagu hayseen ee shaqooyinkiini guriyihiini intaba aad waxweeyaa aad annaga noo dhigteen wadii ka mahadcelina mar labaad iyo mar saddexaadba waxweeyaa wax aanan gudi karin wixii aan halkan ka barannay intaanu fadhnay halkanna runtii maaha wax lagu soo koobi karo halkan oo qura waa wax u baahan inaan ficil iyo aanu ku noqono deegaankayga oo ka muujino tiraahdaa haddii ilaahay xoolo kula maago dadkii sugsiya waxaan aad u bogaadinayaa agaasimo waaxidadii Gabiley ee soo bandhigay shaqadii ay hayeen sida wanaagsan ay u shaqeeyaan maamul doodintu uga muuqato oo ah mid tusaale mudan runtii ahna midaanu qaadan doono oo la tigi doono deegaanadeedii oo aanu kaga dayan doono qaabka maamul doodishineed ay u shaqeynayeen ee wanaagsan ee quruxda badan waxa kale Soomaalidu tiraahdaa adduunyo ninka weyn baa laga wareystaa aakhirana ninka cilmi badan marka waxaan u jeedaa maadaama aad tihiin deegaan fahmay shaqada ay hayaan ee u hayaan dadkooda iyo dalkooda oo aad xoogaa nooga way aragsan tihiin inaanu idinka qaadanno waxaadna dheertihiin gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Gabiley Mustafa Xaaji Cabsi oo tababarkan soo xidhay kulley ammaan badan waad noo soo jeedsan maana lahayn ammaanta badan waxa weeyaan la shukr cala waajib ana waajibkaygu maanu gudano waxa weeyaan rag nagu soo biiray ama deegaano naga maqnaayo anaga noo yimiday oo mashruucan GPLG-ga noogu soo biiray oo waxya naga maqnaa baan anagu soo dhaweysanay markaa waxaanu dareemaynaa inaanu garabyo aanu helnay aanu maanta la duulno ama la jaan qaadno oo anaguna idin barno waxa weeyaan anagu sidaan baanu mar soo ahayn oo aanu tababarka soo galanay oo degmooyinkii naga horeeyay GPLG-ga nooga horeeyay ayaguba na tababarayeen anagoo tii baanu idinku dibaaqana marka wax weeyaan wax anaga waajib la noogu lahaa ayuumaanu gudanay waxaan idin leenahay tababarkaad halkan ka qaadateen iyo waxa aad kororsateen iyo aanu ka baranay mashruuca GPLG-ga ama beer to beer-ka training-ka aynu maanta aynu qaadanano wuxuu waaye arag noogu yahay isdhexgalka degmooyinka iyo isdhexgalka agaasimayaasha waaxyaha marka waxaan wixii halkan kala noqotaan baad ku dabaqi doontaan shaqadiinii waxaanu ku jirnay wax dhis baanu ku jirno school dhis caafimaad dhis wax dhis baanu ku jirnay dad dhis baanu hadda iminka galnay anagu oo waanu ka sii tagno iminka dad dhis baanu ku jirnaa oo waxa weeyaan miisaaniyadeedii hore waxaa noogu jirtay 100 qof oo 100 qoys ayaan waxaanu siinay in si ay dhaqaalahooda u soo kabtaan oo dadkii masaakiinta iyo hawlihiisa ugu bataan ayaa waxa dadkii marka la hadlo waxaan niri waa balmal laami u dhismayno oo school u dhismayno oo xanaan u dhismayno aynu dadka dhisno waya la xaaji telefishinka qaranka Gabiley.